waxay soo martay gabadh loo qabsaday madiido oo madiidadii iscakistay madiidadu waxa weeye waxaan ay carabtu yiraahdaan tiwalada oo qofka ayaa waxa la rabaa inay wax jeclaato ama ninku inuu wax jeclaado ayaa la rabaa madiida la yiraahdo carabigana tiwala ayaa lagu yiraahdaa inantii markii madiidadii loo qabtay dhammaan wax allaaliya wixii rag ah oo dhan bay saniftay xataa aabaheed xataa walaalkeed wax walba way saniftay ragba hadduu noqdo qadhmuun buu u soo uray halkii laga rabay inay ninka jeclaato bay jamiica rijaal oo dhan bay nacday mid kalena way soo martay oo isla madiidadaasa oo markii madiidadii loo qabtay nimow nin ma tahay oo u jeclaatay wax allaali wixii ninba sheegta way iska daba ordaysaa waxa anigu aan la kulmay ama ninkii arkay oo iga waramay ninba wuxuu soo samaystay madiido waa qiso aad u cajaa'ib oo qosol badan ulbaa loogu soo qabtay oo hadiya jeer miyiga markaad aragto ulbaa wax loogu soo aqriyayaa wixii maxaan ku dhahay junuudi la soo raacinaya deedna ninkii oo ushii wata ayaa wuxuu soo maray meel ceel ah oo laga dhaansanayo ayuu soo maray ushiisiina iska sitaa isagoo oo markaa ushiisii sita oo doonaya inuu ceelkii ka cabo ayaa dameer meesha taagnayd oo la dhaaminayay ayaa ku soo yara dhawaatay deedna ushiibuu iskaga dhuftay dameertii baa daba carartay isagii meeshuu maraba way daba qaylinaysaa meeshuu maraba way daba qaylinaysaa war dameertii maxaad ku samaysay war dameertii baa ka hadhi weyday si allaaliya si looga reebo dameertii waa la garan waayay aakhirkii dameertii waa la dilay aakhirkii dameertii waa la dilay xaqiiqatan marka horta caalamkan aynu ku noolahay waa caalam wada asraar ah oo aynaan furfuri karaynin oo ilaahayna leeyahay subxaanahu wa tacaala wamaa uutiitum min alcilmi ilaa qaliila wamaa uutiitum min alcilmi ilaa qaliila marka aqoonta maanta aynu u leenahay iyo mugga aynu u leenahay cilmigani waa aad buu u yaryahay ilaa iyo haddana dadkii kama waantoobayaan war ilaahay qur'aan buu ina siiyey وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين نبا نشيخ أويمي وحد الشيخو قرآن كي أنيقا ويدبا يا مركا لا يقو أقريبا قرآن كي ما بكو عافي ماضي وحد دي منافق باتاي ما حد كو عدين يسا دي قرآن كاكو شيخي بيلي وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا ولا يزيد الظالمين إلا خسارة ظالم باتاي بودي توبة كان مركز القرآن كو حكو أنفعيا أديكو هدان القرآن كي كو كالسونين أو ثقة كو قبن وحبا كو تري مايو ظالم بعد نقون إيسا ظالم كنو ما ينتفع صدد القرآن القرآن كو أنفعيا مؤمنك سيدي هذا من وحو أنفعيا قفك دي يقينسا أنا عند ظن عبدي بي ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة إلهي بريا يدينكو rumaysan inuu ilaahay idin aqbalayo uma baahanaysaan mushacwad iyo sixiroole iyo wax jin la shaqaysta midnaba qofka bin muslimka uma baahanayo laanahu wuxuu haystaa kalaamullahi tabaaraka wa tacaala ilaahay kalaamkiisii buu haystaa marka waxaan idinku naseexaynayaa dadka meelaha fadhiya ee jimanka adeegsanaya ee shayaadiinta wax la qaybsanaya ee wax weydiinaya waxaan ku yidhi qolahan maalintii dhaweed yimid gabadha lahaa wax lacag baan siinay maxaa ku rumaysateen waxay noo sheegtay xaaladaha iyaga oo dhan bay nooga warantay magacaygii bay sheegtay magacay aabahay bay sheegtay kii awowgay bay sheegtay dhibaatooyinka aan qabo dhan bay ii sheegtay waatan habeenkii dhaweyd idinka waramayay waxaan wax saa u sii ridan maaha inuu maxaan ku dhahay shaytaanka la shaqaysanaya inuu kaaga waramo xaaladaada oo dhan wax muhiim ah oo qofka bini'aadmiga awliyanimo tilmaamaya ama qofku inuu qaybka wax ka og yahay tilmaamayso ma aha labadan shaytaan ee qarinadun baa iswaraysto anigii kaaga waramay marka barakallahu fiikum waxaan idinka digayaa oo idinka nasteexaynayaa dhib badan baa ka timaada marka loo tago saaxirka iyo maxaan ku dhahay kuwa mushacwidiinta diin ahaanna waa badee lagu baaba'ayo waataan ka soo waranay ruuxii sixiroola u taga ee rumaysta wuxuu ka waramayo faqad kafara bima unzila ala muhammad xadiidkii saxiixa ah
قفك سحرولة وتجا واحد دينه هيستا ما شرته دين إسلام كبنانكو كيهاي إن لو تجا معهن طيب oday dhintay عبد الرحمن خليل la oran jiray baa 2007 iga sheekeeyay wuxuu kismaayo niman Soomaaliyeed jooga oo la yiraahdo jinkay soo dajiyaan oo qolyahan saraakiishana sixirka iyo balaayada iyo u sameyn jiray ayaa waxa ay diray nin mas'uul oo hadda hadalkii sheegi maayay nin dhintay oday ah oo janaalayhi Soomaaliyeed kamid ahaa ayaa wuxuu yiri nimankan dad u tagto xaalku waa xun yahay bal iigu yeed asaguna wuxuu ahaa xirtii uu soo ay soo tababareen ruushka Cabdiraxmaan Khaliif waad garanaysaa tayib marka asaga iga sheekeeyay Canada Toronto iga sheekeeyay 2007 rag badan waa ila joogaa laakiin waxba magacaabi maayo marka nimankii markaan keenay oo odaygu u yimaadeen generaalku u yimaadeen yaa waxaa idhi buu maxaad sabaysaan idinku waxay dhahan anagu jin baan u yeernaa soo dejinaa waxa bashar looga baahan yahay baan soo qabanaa ninkii la garan waayo warkiisa la bixin waayo jinkan ku diraa waa la kala fiiqaa hadda aad wadaas waasho waan kugu sii daynaynaa didna board baa kaa kacay waxaan idhi buu ruuxaan uma aaminsanayn muruq iga bixi waayo halkaa dambe iga jiree oo insi iga saari waayo nimanka jinkeed sheegaysa intaad u yeedho muruqa iga bixiyeen asagaa baa dee ruux ka caawal adag marka wuxuu yidhi nalka waa in la damiyo jinku ma ogola iftiin faynuusi baa la damiyey tariigii baa la damiyey nalkii baa la damiyey waxay dhaheen buu gooni u istaag iyayna baalluhu ku tuman dadka kale gooni u fadhiiso gooni baa la ii fadhiisiyey markaasaa meeshii garabki waxaa laga saa waxaad mooda buuri bir culayska inuun shamiito iyo tirir waaweyn ay qaban hayaan mooyeen wax bini aadan suuraysan karo markii laba goor la camajuujiyo oo feeru jabi gaadhay yaani bas iga dhaha bas marka waxa weeye baallaan qorshooda wax bini aadan xamili kara ma laana waa caalamul geyb isku baab maniin isma fahmi karo islama qabsan karo saadarteed buu nabiga uga tagay saxaabada oo kaliya ugu tagay tayib nabiga maxay yeelay waa basharka waxbuu kaga duwan yahay maxay yeelay wuxuu nabigu qaaday oo dul qaadanaya aadama ma xamili kara atani da'i aljin jin ba yimid wafdigoodi fadhahabtu ma'a wa raa'ay jin hada dad ku dhaakaale waan israacayna ma hor baan karabna xogay jinkaan ku geynaya wada carar lahayd oo wadaad macallin ah oo hadda magaciisa sheegay Xuseen Qallafa garan baan u malayn yaa wuxuu yimid 2001 buu yimid gabadh ka xanuunsatay dugsiga joogtay buu quraan saaray markaas jin ka hadlay jinkii baa waxay wuxuu ka baxa gabadha maxaa ka rabtaa ka baxa fariyad bi xitaga ka sameeya socda waxay dhawaan ka baxaynaa kuna soo laakiin hal shart ayadan ka baxaynaa adiga aan ku galeynaa bay dheh kabii buu ka soo cararay waalku cararaya oo wax kaba wadanin ya sigiska igu yimid macallin baa dugsi quraan dhiga eedka ka dhigi jiray hadda magaciisa waxba sheegin rag badan baa garanaya daan sheego marka waxa weeye nin hawlo badan baa marka soo carray maxuu carartay baa hadda jiin waan ka bixdaan ku galayaa maxay fariisay meesha marka biraadku jinka aad bay uga cabsadaan waana aniga wuxuu sameeyay jin bay markii ugu horeysay jin ka dhawaaqay gabadh buu ka bax kan ka baxa afka ka bax buu afka gabadhi baa afka darbiga ku qaracay ilkii oo dhan baa ka daatay lama ogta meesha ka baxaan bay ruux u dhacaya in faraha iyo lugaha iyo meelaha u dira atraafta loo dira marka ruux ka saaraysa baalka jinka meelaha atraafta ya loo dira faraha iyo lugaha iyo xagga ka baxba leeyahay meel duleesha ka baxba lama yiraahdo dhagta ka baxda tira dhagta fuqaysa ruuxa isha ka bax isha soo boodaysa marka meelaha atraafta loo dira afka ka bax buu gabadhii baa darbiga la dhacay afki sidii qoolay biyo cabis ilkoo dhan baa ka daatay afa dhibaatooyin badan u geystay wadaadka markuu cararin baa ugu daraaban wixii kale waa iska roontahay ee kabiyo ka cararay dugsiga dhanaaba qiso yaroo aad iyo aad u la yaab leh baan idinka sheekaynaya oo xaqiiqo u dhacday gabadh baa waxay burco ahayd in badanna waan ka sheekeeyay si ay ugu cibro qaataan dadku waa mas'alo aad yani in lagu cibro qaato u mudan
gabadh reer Burca baa waxay siin jirtay nin miskiina ayay aroor walba quraac siin jirtay ilaahay dartii laxoox iyo subag iyo waxay isugu dari jirtay koobkiisa shaaha ah ninkii maalintii dambe ayuu gabadhii la hadlay wuxuu yidhi heedha gabadh yahay waxaan kuugu abaalgudo garan maayo laakiin waxaan doonayaa inaan ku abaalgudo ninkaaga ku jeclaysiiyo oo aanu meel kaleba aanu hawaysanin waa si fiican bay ku tiri waa sax iga caawi deedna qardhaas qoran buu u keenay maalintii dambe wuxuu ku yidhi ninkaaga barkimada u hoosgeli maxaan ku idhaa cid kale hawaysan maayo halkaasuna ha kuugu jirto way ka qaaday barkimadii bay hoosgelisay ninkii markuu soo hoyday ee barkimadii ku seexday ninkii waabu shaqo tegi waayey kaadi uu u kaco mooyaan xataa salaad waa u kici kari waayey uu kacaa hadday wax yar uu cuno jiifkuu ku cunaa amba fadhiguu ku yarcana hurdadiibuu ku noqdaa haddana uu kacaa markuu kaadi qabato hurdadiibu 3 maalmood iyo 3doodii habeen ayuu jiifba ka kici waayey uu sariirtii uun jiifaa war dee shaqo tag waan daalanahay idaadaasun bahaya maba shaqo tegayaba dabadeedna isagoo masqusha galay ayay ka soo saartay meeshii way gubtay ninkii caadi buu u dhaqaaqay markuu iska tegay shaqadii buu tegay ninkii kalena uu yimaadaa mar walba ka warran ninkii si fiican bay tiraahdaa sidhinkuu haystaa maalintii dambe waxay yidhi ku kale ka xoog badan baan kuu keenayaa ku kale kii ka xoog badan ayaan kuu keenayaa waayo iyo keen bay ku tidhi wax yaroo tuman ayuu u keenay wax yaroo tuman ayuu u keenay wuxuu ku yidhi shaaha ugu tar haya keen bay tidhi way ka qaaday waagi aroortii dambe markuu isagu imanayay ayay isagii shaaha ugu dartay isagiiba shaaha ugu dartay marka shaahii dhadhamiyey ayuu cabaaday lawa maxay waxaan ku leedisiisay lawa maxay waxaan ku leedisiisay maradii buu tir sidii buu ku waashay been idii sheeg maayo isaga kii waxa soo dhigay lawa maxay waxaan ku leedahay waxa noo dhiibtay bay ku tiri ninkaasi waxaad nagu tiri ninkaaga sii ayaanu de adiga ku siinay been idii sheeg maayo sidii buu horta ninkaas uu ku waashay marka waxaan ka wadaa unasaxukum billaah nin ceel galay oo aan ka soo warramin nin ma baa la yidhi والرائد لا يكذب أهله الرائد لا يكذب أهله meelaha aad ku warwareegaysaan ama gabadh la jeclaysan ama nin la jeclaysiinay waxa soo dhan hadhow dhib ay keenaa